سميني قدقا إرقوي كشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إنتاك بعد ومناسبة وناكسن مالت شرفنا وإيتهي شرقدون كنوان وقمهات نقيا إلهي نوان وقمهات نقيا هدو إنتا إنو ليسيي إنا نقوب سوق هذا ومالتا عندك كيجي مناسبتني أنكلا قيب غيوم وليبا رد إرقوينا وكوي شرعية دو سميني قدقا وشرف وين إلهي لوغم هدنكم انت وحير عولا ليا هو لو أينو أرقنو ما أنت أو ينطابن كرو هي كهو الرئيسي يودها ولقوا القبايو دولميقا ودبي ووحجرة لكن دبتها كيدا ولو كلا هرية أنو صدح سنوات يبت حبسي أمريكا كسو بحيين هالقيسي من بلا رفلة فرسنادو دو إنا لنولادو أما بكانا كلا سو بحي حبسيقا أنت كقدوية هالقيسة كان قضي لهدين حمر وينات كل قطاع odaygii baa ku doonaya iyaga dee oday buu ahaa inaga jawaa inoo afooyne shaquu ku siinayaa kanuu ku siinayaa waxaa ii muuqatay in xabsi dambe laygu celinayo waxaan doonay ilaa bisha maarsh inaan dalka joogo waxaanan soo galay oon xamar ka soo galay oon xabsiga ka soo baxay 24 bishii Noofembar 74 waxaa dhacday 23 bishii Janawari 75 in culimadii diinta ee wanaagsanaa ee dar ilaahay u hadlayay ee daacadda ahaa inuu qoorta soo qabqabso uu gowgowraco waa kii waddanku hirig noqday. haddana waa laygu soo rogaal celiyo waxaa la yidhi waa inaad ka socotaa Hargeysa, meeyar baad ka ahaan jirtay, ma doonayno inaan isqabqabsanno ama isjiidjiidno. waxaan ku yidhi waar Hargeysaba xabsiyadu waa ka buuxaan iyo gobollada waqooyi haddaa wax igu aragtaan. laakiin dadkaygii oo intaasi ka maqnaa alla nagaadii idaaya waan soo dhammaystay xabsigaygii. waxaa la i siiyey ilaa 15 ama 18 bishii February 75 waxaa igu kaliftay ninka la yidhaa Cali Caarif oo 58 maris aragnay Prime Ministerna ka Jabuuti inaan waraaq u qorto 6 sawir oo kuwa baasboortada aan u diro oo nidhaahdo labada xadka Soomaalida la leedihiin ee Lowyacado iyo xadka Ethiopia la leedihiin qaarba meel dhinaca ka soo geli doono warkaba qabee. Ethiopiana markaasi waa markii taajkii boqortooyada la gambiyey oo waxay ku jirtaa iyada qudhaydu tawrad bay ku jirtaa. marka si wanaagsan buu ii galay, si wanaagsan buu iigu soo jawaabay. sawiradii wuxuu dhigay Lowyacado iyo dhinaca kale Ethiopia xadka ay leeyihiin immigrationka. dadna xaggan Lowyacadaan ka galay. si wanaagsan baa Jabuuti dowladdii hoose iyo tii Faransiiska saraba iigu soo dhaweeyeen. wax badan oo dalka haysta ama wax badan oo waqtiyada qaarkood aynu rumaysnayn laakiin aynu ka noqonnay waan dhacsiiyey. tallaabooyinka meeshaasi aan ka qaaday waxaa ka mid ah taliskii markaa Ethiopia u talinayay wuxuu ahaa taliskii Tafarrabanti ee militariga
intaan la dilin waraaq baan bishii maarch 75 anu qoray waraaqda wax kale ugamaan jeedin rikoorka waxay idiin sii galeen waa ismudan tihiin waa isuran tihiin Itoobiya waxaan ugu qoray waxaa ka mid ahaa dadka reer waqooyiga ah sidaa uga warqabtaan dowladnimadoodii 60kii bay dhiibeen asbaabtay ku dhiibeenna Itoobiya gacan bay ku lahayd ilaa waqtigaasi ilaa maantana xaaba idinka laydinku gubo haddaa Itoobiya tihiin ayay ahaayeen ahaana doonaan ilaa sanadka 80 sanadka 80 ka hor lagama filayo waqooyi ama beesha isaaq la yidhaah inay ama diirto ama ay karto lagama filayo sababta Itoobiya ku lahayd isdhiibka waqooyi isu dhiibay koonfur shuruud la-aan waxa keentay markii ninkii la odhan jiray Sir Lennox Boyd ee wasiirka mustacmaraadka ahaa uu ku dhawaaqay 59 aakhirkiisii in waqooyigu gobonnimadiisa qaadanayo oo ingiriiska uu ka madax bannaanaanayo 26 juun waxa dhacday boqor Hayle Salaase inuu tasriix siiyey jaraa'idka adduunyada inuu yidhi waqooyigii Soomaaliya 26 ayaa isticmaalkii cadda ka dhammaanaya koonfurna wuxuu ka dhammaanayaa 1 Juulaay 60 markaasi labada dalba laba dal oo Itoobiyana ayay ahaadeen hooyo Itoobiyana way ku soo noqon doonaan xisbigii markaa الله يرفع يسوع واحد